saddex jir uur leh waa Soomaaliya meeshan warniyow gabadhan 13 jir waa la dhahoyaa 13 jirna da'deeda uma eko nin baa lagu daray uur. Subhanallah, sida ku soo aragteen muuqaalka bilaawiisa waxaa la sheegayaa gabar 13 sano jirto in uur loo yeelay isbitaalkan ay joogtaa. waa u jeedin dabcan kombiyuutarkan waa kombiyuutarkii mashiinka uurka lagu baarayay. maalmahan gabadhan ayaa social media qabsatay Facebook ilaa TikTok, sawirkeeda ayaa la wareejinaa. ilaa hadeertan ani horta maskaxdayda galaada barnaamijkan waana aamin lahay totally. adigan idaawanayo fikirkaada hoos waan ugu wadaagi kartaa. Soomaali hadaan nahnay ilmaha yar yarka ah oo 10 sano jirada ilaa 8 sano jirada oo salaad iyo soon laga rabin oo saqiir ah aan inta qabanaa uur u yeelena. nimanka waxaan sameeynaa hadhowdii waxa ku marmarsiinayaan gabadha waa qabay xalaal ay ahayd waaridkeeda ay sii waaridow aad cunuga maxaa u dhashay inaa gadataa mas inaa koriso maskaxdiisa markuu koro oo mustaqbalkiisa asaga oo dhisto wuxuu ku faraxsan yahay u sameeysid. Soomaalidu waa dadka ugu liita adduunka waayo wadamada gaalada waxyaabahan oo kale maba ka dhacaan lagamana ogolo qofkii sameeyna xabsi daa'in ama xarig 12 sano lagu xukumaa. halka anagoo muslimiin ah oo ku qaraabanayna diinteena inoo banees diintee waa adeerow diintii si qaldan ma u fahamtay ilmaha yar yarka ah oo salaad iyo soon laga rabin yaa ku dhaclooshu buuxi malaaya kugu dhacday oo kaadid alla kugu dhijaada dhan qof muslim la habarta ay dheesiin war waxyaabahan oo kale ha laga digtoonaada. Soomaaliyeed caruurtiinan waa dhalaysiin waa ka tagaysiin qof walba caruurtiis inuu ka warqaba fiican hadii kale odayaashan calooshu weyn ilmaha calooshu weyn hadda cunugtan imagine markay dhasho hadda imagine cunugtan uura u yeesheen miskiheeda xitaa ma kala furno cunug maba dhali karto waa lagu qalay ka soo qaadba hadda cunugi waa lagu qalay ahay mas'uuliyad hooyanimo ee xambaari karina dusha u saarteen. xilligan oo kale markay jiraan ilmaha waxay u baahan inay deedeelaan inay wax bartaan maskaxdooda inay kobacdo. bal imagine cunug maanta 8 sano jirta ilaa 10 sano hadii la dhaho hooyaa naqanaysa ilmo kori cunugtaas maskaxdeedana way halaabaysaa uqdadna way ku koraysaa runtii nolosha dhan way nacaysaa waayo waxyaabaha u qalmina dusha ka